marka koobaad allah tabaaraka wa tacaala baan u celinaynaa mahad dhammaanteed. huwa aladii awjadanaa, waa allahana abuuray tabaaraka wa tacaala. wa huwa aladii, waa midka naga dhigay muslimiin, waa midkana siiyey caafimaad iyo awlaad intaba. wa in tacuduu nicmata allahi laa tuxsuuha, nicamka ilaahay haddii aad isku daydaan inaad tirisaan ma koobi kartaan. humma waxaan mahad ballaadhan u celinayaa walaalaha isku soo dubariday liqaagan ama kulankan khayriga ah. allahna waxaan u weydiinayaa inuu cumrigooda iyo awlaaddooda ilaahay tabaaraka wa tacaala cumrigoodana ugu dheereeyo maca alcibaada, awlaaddoodana ugu xifdiyo. inta xaadiriinta ee soo xaadirtayna ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan u weydiinayaa sida uu noogu kulmiyey beydkan iyo gurigan inuu jannadiisa noogu kulmiyo. inahu waliyu dalika waalqaadiru calayh. amaa kelimada aan jeclahay inaan caawa idinla wadaago waxaa la yidhaahdaa alatfaalu hum ziinatu alxayaati addunya. awlaadu ama caruurtu waa quruxda adduunyada, waa qalbigeenna ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo jidhkeenna ayuu ka soo gooyey. almaalu waalbanuun ziinatu alxayaati addunya. waalbanuun, caruurtu waa quruxda adduunyada. allah tabaaraka wa tacaala ayaa nagu imtixaamay dhinac kale marka laga eego. inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna. shaygu asagoo qurux ah ayuu haddana imtixaan noqon karaa. kelimada aan doonayo inaan gaadho waxaa weeye, carruurta waxaa la dhalay ayagoo sida warqadda u cad ayaa la dhalay. waxaana laga doonayaa haddii aanu nahay mas-uuliyiinta, aabbayaalka iyo hooyooyinka, waxaana laga doonayaa warqaddaa cad inaanu ku qorno oo aanu ku arqaam ahaan ugu qorno bilcaqiidati asaxiixa, caqiidada toosan iyo afkaarta islaamiga ah ee ilmahan ka dhigi karta ilmo mustaqbal wanaagsan leh. ilmaha ilaahay hadduuna siiye tabaaraka wa tacaala, ilmahaasi waa warqad cad. warqaddaana waa inaan inagu aanu ku qornaa. qodoba waxaan ka dhigi doonaa kelimaad qaab camaliya insha allah. waxaan jeclahay qofka warqad haysa inuu ku qorto si aan mataqaanaa aan tatbiiq camaliya oga dhigna insha allahu tacala haddii alla yidhaahdo. kow, si aan ilmo wanaagsan oan u tarbiyeeyo, ciddii tarbiyayn lahayd waa inaan helaa ikhtiyaaru zawja asaalixa aw azawji asaalix. horta waa inaan u sahmiyaa. sahan sooma taqaanaan, alraa'idu laa yakdibu ahlahu. ninka reer u sahmiyaa reerkiisa been ooma sheego. horta xaas wanaagsan iyo nin wanaagsan waxaa la isku doorta, waad ogtihiin inuu nabigu noo sheegay sal ly slam addiinu waalkhuluq. tunkaxu lmar'a liarbac, waxaa loogu dembaysiiyey fadfar bidaati ddiini taribad yadaak. waxaad ku dooranayso waa diin iyo akhlaaq. markaad xaas diin la guursato, ilmo wanaagsan bay kuu dhalaysaa. waalbaladu atayibu yakhruju nabaatu biidni rabbi. dhulka carasanka ah ee markuu roobku ku do-o wuxuu soo saaraa daaq iyo doog, dad iyo duunyaba anfacda. qofka wanaagsanna waa noocaasoo kale wey. zawjka saalixee wanaagsan ee xuduudda ilaahay garanayana waa saa tabaaraka wa tacaala. kaasi waa qodobka koobaadan u baahannahy. qodobka labaadan u baahannahy waxaa weeye wax loo yaqaano ilmaha inaanu ka dhisno albinaa alkhuluqi aw alakhlaaqi. waa inaan dhaqanka iyo akhlaaqda toosan waa inaan ka dhisnaa. akhlaaqda toosan waa inaan ku hagaajinaa. hadday noqoto cunidda, cabitaanka, jiifka, socodka, hadalka, waxaan u baahannahay wax la yidhahdaa akhlaaqda inaan ilmaha aan ka dhisno. yaa ghulaam sami illaaha wa kul biyamiinik. yaa ghulaam sami illaaha. aadaab iyo akhlaaq baa la barayaa. kaana waa qodob asagana aad muhiim u awey. waa qodobka labaad. qodobka labaad oo carruurteena laga doonayo inaan ku tarbiyayno waa alihtimaamu, waa inaanu xoogga saarno xagga carruurta. waa inaan xoogga u saarno wax la yidhahdo annadaafa.
nadaafadda xagga jidhka xagga ilkaha xagga timaha xagga cidiyaha meeshay seexanayaan waxay cunayaan waxay wax ku cunayaan waayo waxay xidhiir la leedahay caafimaadka waxay xidhiir adag la leedahay caafimaadka qodobkaana waa qodob asagana muhiim aad iyo aad muhiim u ah si uu qofku ogala dagaalamo alwiqaayatu khayru min alcilaaj alwiqaayatu min alamraad yacni cudurrada in marka hore laga hortago biidni illaahi tabaaraka wa tacaala carruurteennu waxyaabaha la doonayo inaan ku tarbiyayna waxaa ka mid a alcilmu fi lqur'aani alkariim inay cilmi iyo aqoon u yeeshaan kitaabka qur'aanka ah kitaabka qur'aanka ah sunnada nabiga sala allahu alayh waali wasalam iyo shareecada islaamka inaanu barno ilmaha waa qodobo ayagana aad iyo aad muhiim u ah inaanu ku baraarugno waxaa kaloo iyadana ka mid a qodobada muhiimka ah ilmaha inaanu ku tarbiyayna la doonayo takwiinu maktabatin khaasa maktabad inaad ilmahaaga u samayso bacda alqiraa'a markay wax aqriyaan kadib inaad maktabad khaasa u samayso meel yar kutub yaryara qisaska inaad u samayso ilmaha waa muhiim weliba khaasatan siirada nabiga sala alla alay salam wa qasas alambiyaa waa inay maktabad yar ilmuhu ay leeyihiin qodobada muhiimka oo ilmaha in lagu tarbiya u baahan waxaa ka mid a zarcu lqanaacati fi nufuusi alawlaad ilmuhu inay isku qanacsan yihiin qanaaco wax la yidhahdo qanaaco soo lama garanayo ilmuhu waa inuusan noqonin ilmo anaaniye ah aniga ana waa inuusan noqonin waa inaan ilmaheena ku tarbiyana wax la yidhahdo qanaaca inay waxaan ku qanacsan yihiin hooyadoodii aabbood inay ku qanacsan yihiin noloshaada inay ku qanacsan yihiin cuntada inay ku qanacsan yihiin waa inay ku qanacsan yihiin meesha ilmuhu ay joogaan mar haddayna kugu qanacsanayn ilmuhu meel kale ayay u hanqaltaagayaan walaa shaka fi dalik waxaa muhiim ayuha alikhwa caruurteenna inaan oga samayno guriga dhexdiisa cashir aabbuhu bixinayo ama hooyadu ay bixinayso barakadaa ku soo degi mar walba waxaan dhahnaa aabbihi hooyadu hadday guri wada joogaan waa inay salaad isla tukadaan macal carruurta waxaad arki mararka qaarkood guri uu aabbe joogo hooyo joogto carruur ay joogaan salaadna soo gashay qof walbana uu gooni u tukanayo aabbaha mas-uuliyaddiisa awey waajibaadkiisa awey waa inuu u sameeyo mu'adin inta kalena waa inay ku soo xidhaan odayga iyo carruurtu wiilashu waa inay hore maraan gabdhaha iyo hooyaduna waa inay gadaal maraan si ay calaamad iyo shicaar ugu noqoto in howlaha la kala leeyahay ama shaqada la kala leeyahay marka iijaadu duruusi fi lmanzil guriga dhexdiisa waa in laga helo duruus marka waxaa ku soo degaysaanu i naxariista waxaa lagu baranayaa cilmiga awlaadduna waxay arkayaan meeshani khayrka ka jira ayay marka ay arkayaan qodobada muhiimka waxaa ka mid a waxa loo yaqaano almusطalaxaat الsharciya in ilmaha la baro qodobka inagu aad uguma badno almusطalaxaat الsharciya waa maxay ilmaha waa in la baro erayada islaamku u adeegsado islaam muslim aلsalaa aلzakaa alukhuwaة fi اllah tabaaraka wa tacaala walaalnimada islaamka xaqu ljaar jiiraan deriska xaqu isku leeyahay shacaa'irta waaweyn waa in alfaada waa in la baraa xataa haddii aad bari karto hoos xataa usii dhaadhac erayada gooni loo isticmaalo tafsiir xadiith waa in ilmuhu garanayo cala tuul tafsiir xadiith caqiido fiqi muslim walaalnimo ukhuwa shacaa'irta mustalaxaadkaa caamkee islaamka uu leeyahay waa inuu ilmuhu garanayo oo markiiba markii la caqiido waa inuu garanayo wax qalbiga la xidhiidho oo la aamino oo saas oo kale fiqi markii la yidhaahdo sida oo kale arrintaa waxaa aad ugu dhiban macalimiinta ma fahamsiin karaan caqiide maxaa la yidhahdaa leanna gurigi baan marka horeba aan laga soo dhisin qodobada ugu muhiimsan awlaaddeenna aan ku tarbiyayna waxaa weeye rabtu lqalbi billaah ilmaha qalbigiisa in alla lagu xidho ilmaha qalbigiisa in ilaahay lagu xidho tabaaraka wa tacaala yaa ku abuuray yaa sidan kuu abuuray quruxdan yaa ku siiyey la xiwaartan ilmaha horta ilahay ku xidh tabaaraka wa tacaala awalam yara alinsaanu anna khalaqnaahu min nutf faida huwa khasiimun mubiin in candhuuf laga abuuray inuu dhiman doono in qabri la gelin doono inuu soo bixi doono horta qofka in ilaahay lagu xidho yacni awoodda yaa leh tusaale waxaad hadda usoo qaadaa
وحركة الدكتور عبد الولي فيلان أو محاضرة في عن كدقي الطائرة المفقودة أو محلنا كان وصح وأنا عجيب ضنوي دياردي كولومبو كصوب بحري اللي لا يهي اللو أديك سيدي دمان يا وحي علمي لهي ولي لا يهي أودا يسأل تساله وحو قران كران كهضيا تساله ilmaha uu garan karo gaaladu ilmaha waxay ka dhaadhiciyaan inay awood badan bala tusaa laakiin waa inaad ilaahay ku xidhaa adoomada dadka oo dhan inay ilaahay adoomo u yihiin waa inaad ku xidhaa tabaaraka wa tacaala huwa alladii yuxyi wa huwa alladii yumiit midka wax dila waa allah midka wax nooleeya waa allah tabaaraka wa tacaala biyadihi kullu shay walba asaga ayuu gacanta ugu jiraa asagaa xanuunka keena asagaa jirada qaada asagaa wax arsuqa wahakada yaa ghulaam inii ucallimuka kalimaat ixfad illaaha yaxfadka cabdullaahi bin cabaas ma ahayn dardaarankii nabigu siinay sal ly slam yaa ghulaam inii ucallimuka kalimaat arag kalimaad baan ku barayahay ilaahay xifdi adigana wuu ku xifdin inii ucallimuka kalimaat احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة أصدق يربى مركا لبريا مركا ربط القلب بالله إن إلهي تبارك وتعالى قلبك طفلك إيا إلمهم إن الله كحد تبارك وتعالى أو مركا وحي الكل عامبا وإنه يقانه لا إله إلا الله وإنه يقانه سبحان الله وإنه يقانه إنا لله وإنا إليه راجعون وإنه يقانه يا الله عروتنا ما يقانا وحا ما يقانان إلا من رحم ربي المهن مركي وحكو دعان وحيالها دانا من بركة نبي كلاحشانيو صلى الله عليه وسلم أي دهان لكن المهن وين الفاظ لبرا يا الله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون ما شاء الله كلمات كأس إلا برو ووحادي آدمه مؤويان sidoo kale qodobada aadka muhiimka waxaa ka mid a ilmaha aad dhashay farqiga ama waxa u dhaxeeya inaad taqaano ilmaha aad dhashay isku caqli ma aha isku kartina ma aha isku awoodna ma aha isku waxqabadna ma aha hal sal ha wada gelinin hal khaanadna ha ku soo wada xirin ilmo walba wuxuu leeyahay mawhibo gooni ah iyo waxyaalo ilaahay gooni oga dhigay tabaaraka wa tacaala marka waxyaalaha tarbiyada ilmaha ولذلك وحركيسا آبا وحليه وين وحا برتا المهم بكله وين وحا برتا وكو أتكينا يا وكو قصبيا مرق قاركوت الماء وما سميسنا علم إنه برتو وحكى لا يا أفرا يا أخي أدى أصغى وحو برنكر أدى هو يدي يا أبو وحي إليه المي ويلكي وين أختار نغضا قبل إذا وين أختار نغضا ما بقوا قابيسني ما بقوها بيسني ما بقوا ديار سيدا وقص بيسا الماء ميول كيسة إيا ماشو وچنشيرو iyo waxa uu jecel yahay maskaxdiisuna ay qaadan karto kala tasha asaga laakiin u daa asaga waa inaad aado hebel ba halkaas uu gaaray waa inaad dhihin adna maxay halka u gaari laadahay marka furuuqdaasi waxa al furuuq al fardiyya bayna al awlad bal ilmaha waxa u dhaxeeya waa in la garanay waxa qodob muhiim ayuha al ikhwa ash-shumul fi at-tarbiya tarbiyada aan ilmaheena siinayno inay jamiic jawaanibaha ay ka dhameystirantay محان كودا الشمولية في التربية محان كودا أما الشمول في التربية تربية وحي كوبانتاي أخلاق لقن حاجة عربك حاجة درسك حاجة عبادة حاجة والدك حاجة أمانة كل ذلك وحالي حاجة لقنك ضدك كل ذلك وامحي والشمول في التربية تربية وين دينا أول با قفك وين وصل دينا عنو آذان كحوكو صارن انت كلانا وصل كليدنين markaad wax tarbiyeynayso tarbiyadaadu waa inay tahay tarbiya dhameystiran tusaale ilma martiba ku iimaanaysa ilmaha gaw inaad la fariisataa waa inaad aad martiba noo iimaanaysa ma taqana martidu xaq ay nagu leedahay ha nabiga saasiri sallallahu alayhi wasallam wa iimaan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa idan hadithki waan xifdinay oo hadithki waan aqrinay hayya nutabbiq hadda hadithka waan tatbiqinayna waan dhaqan gelinaynaa mid waa diin midna waa dhaqanka Soomaalida oo ku wanaagsan diinta labadoodii baan barayaa
وإن لوغو هرتغو هذا قضبك مرتدى مركان كهالله إلا من رحم ربي كما بلارو سنين مرتدى يقيمه هذا حرورته إنان كهالله مركي مرتدى قولي نو إيمان يسو كما بلارو سنين وحضر كيسا مرتدى قولي إيمان يسو قولي ببوق باكتشرة النظام قولي ماله ilmihii way qaylayaan hooyadii way qaylaysaa wariga fadhiista bay leemaan taran wariga fadhiista dad ba ii joogay ayaa maanta oran ku haysaa waxay hooyadu u qaylaysaa ama odaygu uu xaraj u dareemayaa oo markii cuntada loo soo dhigo ee dadka martida ilmihii hilibka u qaadanaya ama cadka ugu muhiimsan u qaadanaya te tarbiya mal ilmihii waa ilmihii waxa lagu soo tarbiyaa waa in la yiraahdo albaabka martida lagaga hortagaa kadibna waa la soo dhaweeyaa adigoo nadaafad badan adigoo carfaya adigoo cadayan adigoo barfuunsan adigoo qurux badan baa la soo dhaweeyaa adigoo dhool cadaynayo qoslaya la soo dhaweeyaa kadib martida meesha ugu fiican baa yaa la fadhiisiyaa waa loo adeegaa oo cuntada loo keenaa cuntadana waa la cunsiiyaa cuntadana martida waa la cunsiiyaa arag ilmihii baan tarbiyanayaa waa la cunsiiyaa ma adada gacantaada ku siinayso laakiin kolba cadka hilibkaa la hoos dhigaa xabadda bardhadaa la hoos dhigaa inta loo dhaweeyaa biyihii baa loo shubaa waa lala socdaa qofkan siduu wax u cunayo waana loo sheekeeyaa inta uu cunayana haddana waa loo sheekeeyaa adigu haddaad ka hor dheragto xataa lagama kaco ilmina barta wey xataa haddaad ka hor dheragto lagama kaco markaad cuntada cunayso adigu afka lama buuxsado waa la xishoodaa ilmihii waa in qaabkaa loo baraa kadibna waa in falaxalkii wixii loo keenaa وهكذا المها قابك وإن الله تربية هذا قابك الله تربيين وحاول علمه ما قرنيه حق مرتدى حتى ما قرنيه قضب كارته وقضب مهمة أو كسابسا الشمول في التربية تربية وين تاي تربية لنا والباء كذا ما يسترن وين نقط حتى وقفك أصوغ اسكف في اللعظة سيدا كله قضب هذا آت كمهمك أو حاكم ذا تعليمهم فضل الأخوة في الله أو تعلمهم فضل الأخوة في الله المها وإلا برا ولا لماذا إسلام مسلمين تقولي ولا ليهن مرر بدن قريهن مع الأسف الشديد عذر كي دلاجة ها كنسر كأها ودن كي نجا كيني قحوتيجا نجدجي أي قريهن كتشرة إلا تدير الله ونحرس موين المهم محو مغليا قبل هبل قبيل هبل odayga oo xanaaqsan maanta oo BBC intuu dhageystay cirka maraya mahanaga maanta reebel arrinkaana yeeleen war ma arrinkaas oo dul qaadanayna islaantii oo xanaaqsan mala islaamo uma badan u malaynaya almuhim ilmaha muxuu arkayaa adigu ku arkayaa talow aaba maxaa ka xanaajiye talow aaba muxuu xanaaqsan yahay in badan buu isweydiinaya laakiin ilmaha waa in lagu talaalaa oo lagu tarbiyeeyaa kullu man nataqa kalimata at-tawhid وكل من قال لا إله إلا الله صينيا كان يهوديا كان فلبينيا كان أمريكيا كان كينيا كان إثيوبيا كان عد الله عدوا دونها النقدين كل من نطق بالشهادتين وثبت إسلامه بيقين ولالك في الإسلام أيا كان لونه لونكو دونه إيا مذبكو دونه بحال هذا تربية وإني قريين كتيران وحتى هداد معظم مالمها قاركود إن الحوغا يرقويسيسو أما يرقبي ليسو على الأقل عذر كان دلاجة يوسف أوجد بالإلماه بلقوني واحد أصمين كرت أصمين وأمرك أو يرتايبان كهذا يا تدوني سنة واحد كهذا شو ما يكلا يقانا حتى أصوه مسيح وناكسن بضا واحد ليسا مسيح بضا واحد ليسا حتى أصوه ما يقان إنا حناكسن تايم بوكو أركا هذا تبحان صوبة حياة جيل أي كوكو فلنتا أي أفكار خريبا وحان ليلة مرك وارفضل الأخوة أبي الإسلام لا أبا لي سواه المهنة أمرنه إذا افتخروا بقيس أو تميم أنا أباهي وإسلام بلال منا محل سهيب منا أهل بيت سهيب أنك أيو نجمديه وكي النبي صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون إخوة إلهي نساس إليه تبارك وتعالى مركا عرورتنا وإن أنبرنا ولا لماذا فضلك أي لاذهي ولا لماذا إيا أخوة لماذا قيمها إيا درجة أي لاذهي وإن أنبرنا
وقضب مهمة وإن برنا إن علمه ما هنا قالوا صابران أما مدارسه أي صابرا وقضب كلام مهمة الابتسامة الصادقة لولا عدين أما موصاد رنأة أو أنا هين مدى قالوا أي صابرين مثلا إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم هذا اللي بحكوا لولا عدين همود إنه كو قسليه لكن إنه كعنود دونيه وعلى مدى منافقين تلقوا يقال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم إلهي مركو تلمامي قال وحيري أوركوذي عربكوذو اسمله عربكوذي أوركوذو اسمله أما قفك مسلم لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون قفك مسلم أوركيسي عربكيسو وإن إسليهن المهاجة مركة وإن أدبرتو الابتسامة الصادقة أو قفك مسلم لو موصاده أو لو قصله المهاجة وإن أدبرتو حق الجار حقوق الجيران ودوكتين هلك مركة نشوغنو باب كاتن إسلامكو ونبري ماشن كما شقية كشقية أيها الإخوة حق الجيران جيران با حق إسكوله وحيلاذا يا عائشة نبي وحيري صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه جبريل كمزول إنه جرس كنادر دار ميو انت كمل يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم إنه بدرسك اسمح لي دونه وصيادة يدردارا كوينا كذا إنه باسمح لي دونه هدو ما انت فلان انتو عدة دحليس الدرس كذا بإنه تايه أين ورثدي سأهين ساسا بأم ليبو ليه درسكو مركا قيمة بدن بوليه هدو مسلم يهي قيمو ليه هدو مسلم أي من قيمة كلا أيو ليه لبضو با حقوق ذا إسلامك وأنا عدل لغا إسلام عدل لغا إسلام المهنة وإن أنبرنا وحلا يرهدو إنا لو وذا تشي أما أيها دحضوضو إنا وذا تشدان أما أذوقوا بإنا الله تشتو حضرات آخر كذا وحني دونا تدبر أدبي تدبر محل إلى ذا وحبر تدبر الله صاحب وإن هذه المها قال لا تشتا وشاورهم في الأمر نبي قال لقول صلى الله عليه وآله وسلم المها مركز لا تشتا وحبضا أيات كفى إذن أيها الإخوة كذلك وحل مذا غرس روح المسؤولية المهني وإن مسؤولية وحل إلى ذا لقوا بيراه مسؤولية إنه مسؤولية قاضي كرا وإن لقوا بيراه هو يدي بقى مغرمان صماها قبضوا وإن يقرن يسو هو يدا مقن يقري كمغن إن ويرش دغكرتو إن وحو فرين كرتو إن أي مسؤولية دا قري قاضي كرتو ويلكو رواسدو كله وحال إلى المهن شعور مسؤولية ماله عرورتين وح أوجو وين يكفكران ووحي عنان سيقوم ورا سندينه ووحي عنان أهم الشيء أيقع عنتان به مؤه ما شرط أذوقيه سيدا حيوان كون ونوعه المها وإنا حيوان نمو ذا كسارنا وإنا أسارنا إنسان النمو إيا بني آدم نمو وإنا المها أسارنا حقوق ذا المهن نقول أيها وحاكم ذا إيجاد الجو الملائم داخل الأسرة قيسك والدولة دولة وحي أبا هانتهي أمني إيا استقرار إيا دقنان سؤال هذا ويديو كل هذا قرنيسان ودن كنانو تشوغنو هدوس أمني لهين ما تشوغي لهين إي جوابه صومية معها قويس كاقي محل أمني لأنو لكتمرك كتكذا ما تغنان بالي لو كتكذا هدي قريقي كتكذا وكون عدشو أو قريقي با نبض با وسن قريقو أهين دريشدو أي كسو دعيان توغدو أي كسو دعيس قريقي أمني معها المها وإن لو دياريا جوي أمني أمني وحو كيمانا يا هدبا لبدا إسقبتا أيو جوي نبت قريدو كيمانا يا قعما قيل شيرا هوسبا اللو دقا دانيا إلكا إسكود وإسقومان أما وإسقينان في الرواية أخرى وإسقومان أما وإسقينان يرحمك الله هوس وضح الله
hoos u wada hadla ilmuhu markay seexdaanna wada hadla miis qudaar iyo biyo cad ay yaallaanna ku wada hadla adoo labisan iyo ayadoo labisanna wada hadla natiijada ka soo baxda ani igula soo noqo xaqiiqadu waa noocaa wey arrinta ugu culus haddaad saa jawigaa loo sameeyo ugu culus xalkeeda ayaa la gaadhayaa marka macal asaf reero badan carruurtoodu guryahooda kuma noolo maxay nabad odaygii aabbihii baa isku qaylaya carruurtii oo meesha way isku qaylayaan bal gacan bay noqonaysaa bal boolis bay noqonaysaa marka qaarkood warso wax jira ma marka qaarkood boolis bay noqonaysaa in odaygii la tikhaantikiyo oo meesha laga saaro tiq nin weyn oday ah in laga siiyay noqonaysaa carruurtiina way arkayaan markaasaa idin leeyahay xog ogaal baana wax badan baan ogahay idinkuna aad og tihiin ilmihii markay arkaan hooyadii aabbihii oo isku qaylayo indhaha galka wada bixinaya ilmahaasi nabadgelima marka da waxay noqonaysaa koobkii dhacaba in la yidhahdo allah hadday isku bilaabeen allah hadday isku kaceen allah haddana ilmuhu markay arkaan hooyadoo iska ooyeysa xoogaa hooyada way qalbi jirata sooma waana laga yar awood badanya sooma ilmuhu xoogaa markii waxaa arkaysaa adigoo samaystay mucaarad oo ilmahaagu inay mucaarad kugu noqdaan ma wax ka adag baa jira waa kudkudahan kuu sheegay marka dambe waa lagu afga mid waa lagu inqilaabi hadday dowladdu ay mucaarad yeelato maxaa dhacaya adoo taagan baa lagu inqilaabaya adoo taagan baa lagu xamanaya aabbihiiba hoosta laga xamanaya odayga wakaas lama raba saas marka jawi nabadgeliyo horta waa in laga dhisaa daakhil alusra qodobada aan islahay waa muhiim waxaa weeye adducaau lilawlaad awlaadda in loo duceeyo in badan arrintaasi aad uguma dhaqano laakiin dad ilahay waafajiyena waa ay jiraan waxaa idin xusuusinayaa qofka musaafirka reerkiisa markuu ka tago wuxuu nabiguna baray sala allahu alay wasalam daabada markaanu fuulayno ama ritiga ama dameerka ama diyaaradda hadba wixii la fuulayo in la yaha bismi llah bismillah bismillah ama allahu akbar allahu akbar allahu akbar kadibna subxaana aladii sakhara lana hada wma kuna lahu muqriniina waina ilى rabbina lamunqalibun allahuma ina nasأaluka fi safarina hada albira wالtaqwى wa min alcamali ma tarda allahuma hawin calayna safarana hada waطwi cana bucda allahuma anta الصaaxibu fi الsafar wاlkhaliifatu fi اlahli ilaahu safarkan adigaa igula jira maciyadaadaan ku jira xifdigaagaan ku jira maciyadaasi ilaahay tabaaraka wa tacaala waa alxifdu wاlta'yiid wاlnusra wey reerkina adigaan kaaga soo tegey allahuma ina nacuudu bika min wachaaءi الsafar wa ka'aabati اlmandar wa suuءi اlmunqalabi fi اlmaali wاlahl way u ducaynaysaa ilaahay uu reerkayga markaan ku noqdo reerkayga iyo carruurtaydii ilaahu waxaan dhibsado tabaaraka wa tacala waxaan anigu dhibsado allahu yaana ugu noqonin ilahu waxaan ku farxo ayagoo ku sugan oo barwaaqo aan ku laabto waa adigoo safraya ducaau lghaa'ibi laa yurad qofka u duceeya walaalkiisa kale markuu ka maqan yahay lama radiyo reerkaagu xaqoomala miya ah rabbanaa hab lanaa min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun aragada waa dadkii war wanaagsanaa saasuu ilah bal nabiyullaahi zakariya hunaalika dacaa zakariya rabba qaala rabbi hab lii min ladunka duriyatan طayiba inaka samiicu ducaa lama soo koobi karo ducada qur'aanka axaadiisa salafku way u ducayn jireen owlaadooda iyo carruurtooda qalbi bayna ugu ducayn jireen ilahayna waa aqbali jiray tabaaraka wa tacaala sidaa daraaddeed xuquuqda ilmaheennu ay nagu leeyihiin waa inaanu u ducayno waa inaana habaarin fii saxiix muslim nabigana sal ly slam wuxuu leeyahy war carruurtiina ha habaarina oo xoolihiina ha habaarina oo naftiina ha habaarina habaarka waxaa laga yaabaa inuu ku soo hagaago saacad samadu furan tahay oo ilaahay aqbalo tabaaraka wa tacaala weliba waxaan idinku darayaa awqaatu alijaaba weliba ayuha alikhwa ducada waa in lala beegsadaa ama lala eegtaa wakhtiyaalka ducada la aqbalo wama akhar waa badanta bayna alaadaani waliqa hadda salaad cishaan tukan doonaa insha allah ilah hadduu na gaarsiiyo mu'adinku waa addimi doonaa mu'adinku markuu addimo aqimka iyo adinka dhexdooda ducada aad ilaahay
tabaaraka wa tacaala gacmaha ugu taagataa sida nabiguna bari sal ly slam wa huwa saadiqu almasduuq calayhi salatu wasalaam wannajmi idaa hawaa maa dalla saaxibukum wamaa gawaa wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa nabigaan ku kalsoonnahay oo na baray oo waa sax ducada waa la aqbalaya shuruudeeda haddii lagaa helo shuruudeeda haddii laga helo u ducee carruurtaada bacda asalawaat almaktuuba u ducee waktiga rabbi tabaaraka wa tacaala niska dambe allahu yanzilu rabbuna kula leylatin ila samaa'i dunya wakhtiga suxuurta u ducee wakhtiga lagu dulmiyo oo lagu gardaraysto wakhtiyaalka ducada la aqbalay ka mid tahay kullu daalika waxaa weeye waa duco ducadaas markaa lagu dadaalo bidnillahi oo awqaada ducada ilmaheenna waa inaanu barna ayuha alikhwa kelimada la yidhaahdo shukran gaaladaa soo bartay soomaya nagaalka taak mi ku dhahan wax walba annagana laakiin intuu dhergu iska dhaqaaqa hooyadu cuntay u karisaa wuu dhergi iska dhaqaaqi soo saas maaha ilmaha waa in la baraa nicmadan yaa keenay oo nicmadan yaa leh anu waan kariye horta waa in ilaahigii nicmadan keenay waa in lagu shukriyaa oo loo mahadnaqaa humma waalidkii ama ciddii sababka igu noqoto inaan raashinkan ii bislayso oo aan cuno waa inaan u shukri naqaa kelimatu shukran ilmaheenna inaan ku tarbiyayno waa wax aad iyo aad u qiimo badan weeye carruurteenna waa inaan kala dagaalanaa wax la yidhaahdo inaan ku abuuro khawf iyo cabsi alla ha taabanin alla ha qabanin alla waxan baa ka imaan bannaanka u bixin waa lagu dili karaa may tartiibtaada waalidiin badan ilmahooda waxay ku abuuraan khawf iyo cabsi nacam meesha khawfka iyo cabsida leh qaab caqlaaniya oga dhaadhici tusaale koronto soo maaha korontada ahaa ilmaha yaree ku gurguuranaya hadaad ha taaban haddaad dhahdo ilmuhu wuu sasayaa kow laba marka labaadna wuxuu isleeyahy meesha lagaa celinayo waa inaad ogaataa waxaba lagaaga celinayo laakiin haddaa intaad raacdo oo tartiib u raacdo markuu gacanta sii saaray aad dhahdo bahashan waa dab waa kulayl way ku qabanaysaa dabka caadiga ah aad gacantiisa saa u saarto dado fiiriya haddaa dabkan adigu war halkan soo ilmuhu soo miis ma fuulin ha ku qaylin ilmaha waxaad ku dhahda haddaad dhacdo dhiig baa kaa imaan yaa dhakhtar ku geynaya lacag maystaa maya haddaad dhacdo yaa dhakhtar ku geynaya so adigu dhiig kaama imaanayo so adigu ma jabaysid xataa hadduu soo dhaco ilmaha waa la daayaa ha ooya asagu tartiibtiisa asaga ku imaanaya kadib baa waxaa la dhahaa haddaad mar dambe meeshaasoo kale aad fuusho sidanoo kalead u xanuunsanaysaa laagtaa soo qabtada alla weyga berina waa fuulaya waxay u baahantay arrinta in ilmaha aan cabsina lagu beerin geesinimo ha dhaco hadduu doono ha yar jabo hadduu doono xoogaa khatar ha yar galo laakiin asagaa marka dambe is ilaalin doona innaga carruurteenna waa weyn baan waddada goyn karin soomali arkada oo hooyadu saa u haysaa warya joog ay leedahay lama rabaa ilmaha marka waa in aan cabsi iyo khawf waa inaan lagu barin weeyaan waa inaan waswaas buna ka qaadaa ilmuhu waswaas ma la yaqaanaa ilmuhu marka dambe waxaa qabanaya wax la yidhahdo waswaas inuu isku filaan waayo qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid a ilmaha irtiyaadu lmasaajid ilmaha in masaajidka looga dhigo caado oo ilmaha waan ku mahadsan yihiin waalidiinta hadda dhallinyaradan yararka a keenay jazahu llahu khayran ee intaa masaajidka soo xaadiraysa baaraka allahu fiihim in carruurta masaajidka la keeno waan ka xumahay aabba dhan oo asagu masaajidka intaa imaanaya oo og ilmihiisii oo guriga joog ka soo tegaya yaad oga soo tegaysa akhi soo qaada wiilashaada xataa haddayna meesha gabdho joogin soo qaada wiilasha u sabar la fadhiiso dadka waaweyn la fadhiisadhe garabkaaga soo fadhiisa garabkaaga hadduu xoogaa daalo xoogaa u soo qabo maxaa la yidhahdaa shukulaatadiisi iyo nacnaciisi iyo kookadiisa u soo qabo sooma soo wareejo haddana keen yacni masaajidku waa guriga qofka muslimka ah hadda ka hor halkan waxaa idinku weydiiyey qofka muslimkaa meeqo guri buu leeh qofka muslimkaa meeqo guri buu leeh gurigii uu ku dhashay uu seexdo iyo guriga labaad oo masjidka ah iyo guriga saddexaad oo qabriga ah qofka muslimkaa saddexdaa guri buu leeh waa guriguu seexdo uu ku nool yahay iyo qabriga iyo masjidka almu'minu fi lmasjidi kaasamaki fi lmaa qofka mu'minka ihi
masjidka wuxuu ku yahay sida kalluunku badda ku yahay. kalluun hadduu bad ka baxo maxaa dhacaya? kaw mu'minka haddii masjid laga waayo jamaacada muslimiinta uu ka fogaado yaa iibsanaya? shayaatiin baa iibsanaysa. inamaa ya'kulu الdi'bu min alghanami alqaasiya. alqaasiya dhurwaag wuxuu cunaa neefka gooni u daaqa ayuu dhurwaagu cunaa. idan waa inaan masaajidada dhallinyaradeenna gabdhuhu markay yaryar yihiin waa in lagu bilaabo asturka, waa in lagu bilaabo xijaabka, waa in yani laakiin la fahamsiiyo. hal cudur oo na haysta idiin sheego. ilmahana waxaan dhanaa gabadha xijaabka xidho, wiilka waxaan dhanaa tuko, laakiin sababka ay gabadhu isu asturayso waa inay fahamtaa. waxaa dhib yar in la yidhahdo aabbaha baa ku qasba, hooyadaa baa ku qasabta, ayadii ma garanaysaba. mar haddayna garanaynin iimaan waa inuu meeshan ka iimaan ku riixaya iyo daliil ku riixaya iyo jacayl ku riixaya iyo nas ku riixaya iyo doorasho khayaarkeeda ah waa inay gabadhu u qaadato maxay? asturka, xijaabka iyo jilbaabka. laakiin is astur hana ceebaynin. maxaa dhacaya? inay iska tuurto marka dambe ceebtaba mar ayna dan ka lahayn baa marka la gaari doonaa. soma hana ceebaynta hadday intay yar tahay ku socoto mar ayna dan ka lahayn baa la gaari doona. hana ceebaynta mar gabdhaha intay yaryar yihiinna qodobada ugu qiimaha badan waxaa ka mid ikhwaani tagyiiru lbii'a. ilmaha haddaanu awood u heli karno inaanu bii'ada iyo jawiga iyo meeshay ku nool yihiin bal inaan u bedelno. cala alaqal 2 bilood, cala alaqal 3 bilood, cala alaqal yacni maxaa la yidhahda 2 wiig waxaad arki doontaan ka guran doontaan midho aad u macaan. midho aad u macaan baan ka guran karaa. wallahi waa saa wey. dadkii tajrubeeye oo dhanna xataa soo noqdeen dhib male marka dambe way dhici kartaa. laakiin inta yaray xagga joogeen 2 asbuucna allaha ka dhigee waxaad arkaysaan midho cajaa'iba. waayo ilmihii wuxuu maqlayaa adin. halka mu'adin bay maqlaan ilmo. ilmaheennu mu'adin bay maqlaan. allahu akbar, allahu akbar. ilmaheennu may maqlaan walaalayaal? maya wallahi ma maqlaan, ma maqlaan. laakiin markaad waddan muslim geyso ilmaheennu maxay maqlayaan? adinkii bay maqlayaan. salaaddii bay tukanayaan, eeday arkayaan, habaryar bay arkayaan, waxaan o dhan bay arkayaan. ilmo bii'a islaamiya ku nool ayay ilmuhu noqonayaan. marka ilmaha haddii la awoodo tagyiirulbii'a, jawiga in laga bedelo waa wax aad iyo aad iyo aad weliba runtii aad iyo aad u qiimo badan weeye. waxyaalaha qodobadaan isleeyahay waan soo arunay insha allah. qodobadaan isleeyahay waa muhiim. waxaa weye ilmaha in lagala dagaalamo munkaraadka laguna caawinin. in kasta oo maanta munkarku uu meel walba galay waad ogtihin. ayfoonnadan iyo aybaadyadan iyo waxaan ay ciyaalku haystaan yaa wax walba ka buuxaa. laakiin inta aad awoodi karto waa inaad ilmahaaga aadan munkar ku caawin, aad og tahay inuu ku jiro. waayo munkarku waa munkar. munkarku waa shay la inkiro. munkarku waa shay ilaahay necab yahay tabaaraka wa tacaala. waa wax diinta fitradaa necab oo rasuulkaa necab sal ly slam oo diintaa necab. marka munkarka carruurta in aad loogala dagaalamo waa wax iyadana aad runtii aan isleehay waa wax aad iyo aad u qiimo badan weeye. ilmaheenna waa inaan kala dagaalamo inxiraafka manhajiga ah. waa maxay inxiraafka manhajiga? khaasatan da'yarta iyo dhallinyarada. aabbaha u malaynaya ilmihiisa inuu koriye oo keliya. ilmuhu markuu weynaado intimaa buu u baahan yahay. ilmuhu markuu weynaado meel ma taagnaanayo, meelunbuu ku xidhmayaa. laakiin waraabo badan baa aagga taataagan oo diin sheeganaya. haye qolo wuxuu gelaya takfiir. ninkii yarkaa dhallinyarada ahaa oo waxaad arkaysaa adiga laftaada ku gaalaysiinaya, adiga laftaada ku gaalaysiinaya oo xerada kaa bixinaya ayaad mar arkaysaa. mar wuxuu noqonayaa xisbu taxriir, mar wuxuu noqonayaa suufiya, mar wuxuu noqonayaa afkaar munxarifa ah oo khatarteeda buu. xageed ku ogeed marka wiilkaaga adugu xageed ku ogeyd? marka dhallinyarada waa in lagala dagaalamaa afkaarta munxarifka ah ee ka leexinaysa aariiqa aljaadda ariiqi ahli الsunna waاljamaaca. waa inaan barnaa marka xalaqaadka cilmiga marka waa inaan nagu imaanaa, culummada aan ka faa'iidaysanaa, aan barannaa waa maxay ariiqa ahli الsunna waاljamaaca ayadoo ku xidhan tahay bifahmi salafi hadi اlumma. macnaheedu waa maxay? dhallinyarada waa in ariiqa lagu tarbeeyaa caqiidatan wa suluukan wa akhlaaqa. saddexdaa ma kala hadhaan. caqiide ahaan, dhaqan ahaan iyo suluuk ahaan
saddexdaa ma kala hadhaan dhalinyarada waa in lagala dagaalamaa wax loo yaqaano aljidaalu alcaqiim dooda mandhalayska ah ee aan dhalaynin doodii dadka hore waxba ku keeni waay soo doodu khatar bay mar walba qofka dhalinyarada ay gaadhsiisaa laakiin qofka ahlusunna waljamaaca manhajkiisa fahamsan dooda iskuma mashquuliyo abadan dooda waxaa ku mashquula waa ahlubidaca hadda u fiirsada raggii xataa culummada ah waaweynaa imaamu alghazali iyo imaamu alxaramayn aljuwayni iyo ibnu carabi iyo raggii cilmulkalaamka cilmiga la yidhahdo isku mashquuliyey mid walba wuxuu jeclaysay markuu dhimanayey cajaa'izu naysaabuur habraha reer baadiyaha ah ee naysaabuur jooga caqiidadooda oo kale inay ku dhintaan waa kii u laha xayarani alhamadaniy ninka hamadani la yidhahda ii wareeriyey waa kii mid walba ka tegey maxaa laga yidhi nihaayatu iqdaami alcuquuli ciqaalu wa akharu sacyi alcaalamiina dalaalu wa arwaaxuna fii waxshatin min jusuumina wa aakhiru dunyaana adan wa wabaalu walam nastafid min baxhina tuula cumrina siwa an jamacna fiihi qiila wa qaaluu waxay leeyihin aakhiran waxaanu jamcinay wuxuu yidhi iyo waxaan idhi ayaanu jamcinay waa kii naadiim kale u lahaa wadacanka aaraa'a arijaali wa qawlahum faqawlu rasuuli illaahi azkaa wa ashraxu idan waxa la doonayo in wax lagu miisaamo sharciga waxaa lagu miisaamaa sharciga waxaa lagu miisaamaa diinta ragga laguma miisaamo diinta ee diinta lagu miisaamaa ragga walidaalika cabdullahi bar wuxuu dhihi jiray samaw linaa rijaalakum bal raggaad cilmi ka qaataan noo sheega samaw lanaa rijaalakum lowla sanadu laqaala man shaaa maa shaa hadduusan jirin xadathana akhbaranaa anba'ana dad baa waxay rabaan iska sheegan lahaayeen walidaalika haaruun arashiid wuxuu soo qabtay nin zindiiq ah munaafiqah oo axaadiis been ah ku daray axaadiisa nabi sal ly slam markaasuu yidhi hala dilo markaasuu wuxuu yidhi maxaad iga dili alf xadiis oo anigu jeebkayga aan ka sameeyey ayaan ku daray buu yidhi axaadiista markaasuu wuxuu yidhi yaa caduw allah min ayna laka abu isxaaq alfazaariy wa cabdullaahi bn mubaarak yankhulaaniha xarfan xarfa ma waxaad maqashay abu isxaaq alfazaari iyo cabdullaahi bn mubaarak baa dhintay miyaad maqashay sida tinta markay cajiinka dhex gasho sida looga jiidoo kale ayay xabad xabad oga soo jiidayaan saasaa diinta lagu ilaaliyey marka dhallinyarada waxaan doonaynaa manhajkooda inay bartaan oy caqiidadooda bartaan oy suluugooda hagaajiyaan oy culummadooda ku xidhmaan oy ilaahay tabaaraka wa tacaala sida ay tahay oo u xidhmaan taana waa waajibka laga doonayo aabba kasta jaanibka arrinta laga doonayo wey waxyaabaha ugu muhiimsana carruurteena kala dagaalamayna waxaa weeye albadaa'a afxumada cayda kidbiga khayaanada waa arteen carruurteena maanta meel markay iskugu baxaan waxa afxumo ka baxaysa waad aragteen soosaas ma waa khatar wey carruurteenna waa inaan luqada ay ku hadlayaan waa inaan hagaajinaa waa inaan carabka u saxnaa waa muhiim waxaan u malaynayaa kelimaadkaas inay marka la soo aruuriyo ay nagaga filan tahay biidn illahi tabaaraka wa tacaala khayru lkalaami maa qala wadal asal allah tabaaraka